qofka codaynaya degmadii uu qofka ka dooranayay isaguna uu ka qaatay kaarka aanu dhan uga bixin tuulihii uu joogay reerkiisa dul yaallo ha ka codeeya baa nidhi waa la diiday waxa la ha tago magaaladii uu ka codeeyey waxaan war badal wanaag buu ayuu ka qaatay kaarka imikana 29 jooga waana isku degmo qura 40 kilomitir baa u dhaxeeya reerkiisa halkaas dul yaalla waa ka codeeya halka waa la diiday waa la iga batay saasuu ku ansaxay marka waxa weeye yaan dadka codaynin weeyi sidii dadku beeralayahay oo nin waliba beertiisa dul joogo ayaa sharciga loo sameeyay looma sameyn boqolkiiba 75 inuu reer guuraanahay looma sameeynin marka waxaan lahayn hal la waafajiyo ummadda aynu ka wakiilka xeerka loo sameeyo si ay ku codayn lahayd hal la waafajiyo waana la diiday saasaana shir gudoonku jeclaaday dadkii odayaasha gacanta u taageen sidaa ha ku socoto marka waxa weeye aniga dheeg la dooran maayo waxba iga dhici maayaan ummadii aanu anagu u dareynayna waa loo diiday sidii u dantahay salaamu calaykum xeerdejin baanu nahay waxa weeyaan xeerdejinta xeer baa golay wakiilada ka soo gudbay maxaan ku dhahdaa dorraato waxa la gartay xeerkaasi wuxuu matelayaa bulshada waxa weeyaan bulshada Soomaaliland maanta kii ka soo guuray xaysmayo laascaanood baa jooga wajaale xaysmayo laascaanood kii ka soo guuray ayaa maanta wajaale jooga doorashadiina waxa ka hadhay maalmo haddii la doonayo doorashada in la qabto waqtigeeda ku dhacdo saddex xusbina waa waqtiino shalayto way isku raaceen mid mooyaan intii kale inaan la qaban doorashadii waxa weeyaan haddii la doonayo qofkaasi inuu codeeyo oo xaqiisii muwaadinimo helo in xeerka laga fiirsado muddo 5 casho ugu yaraa ama 10 casho inuu la yaalo oo eegno oo wixii ummadda abaaruhu ku dhaceen u dana aanu ka qaadno waa la diiday waxaanu ku diidnay waxa weeye waxa xeerka ku qoran inuu qofkii laascaanood ka yimi wajaale yimi inuu markay doorashadu jirto uu ka soo codeeyo laascaanood taasina bulshada iyo arrimaha bulshada waxay luminaysaa muwaadinku wixii uu xaq u lahaa waxa weeye waqtiga doorashooyinka ayaa soo dhow imika in dib loo celiyo maaha haddii dib loo celiyo waxa weeye waxa qaadaysa 3 bilood ka bacdi ama in ka badan doorashada dib u dhacaysa marka waxa weeye sidee waafaqsaneed xeerka dastuurka ayman waafajinay walaanu aqbalnay walaanu saxsan sax ku yahay laakiin mudanayaasha ka soo horjeeda waxay leeyihiin qodob ayaa ku jira dadku waa reer guuraayo badan yihiin qodob baa ku jira oranaya qof kasta meesha uu kaarka ka qaatay ayuu ku codayn karaa dadkiina way guureenoo dadkii laascaanood ka soo guuray baa wajaale jooga maanta marka qodobkaas sidaad u aragtaan idinku waxaan u aragnaa waxaan ku sheegnay inaan imika doorasho dhacin inta abaartu jirto oo dib loo dhigay oo xitaa komishiga aan ogolayn xitaa komishiga shalay tolo soo qaaday inay doorashadu waqtiga lagu talgalay aan dhacin abaarta darteed iyo xisbiyada ogolaadeen kuwii mucaaradka aan ogolaadeen guurtuna markay imika waqtigeeda ay kordhin doonto muddo kordhin oo iyo abaar jirta aan dhicin bah ayaa ku sheegnay oo dib loo dhigay doorashada haye oo dib loogu dhigi doono oo aan imika waqti ay abaar jirto aan dhicin doorasho komishiga inuu ogolyahay xisbiyada mucaaradka inay ogolaadeen guurtana ogolaadeen goshay nin damirlana aan oran waqtigan hal la qabto doorasho ayaan ku sheegnaa anagu golaha guurtu dadka dhex weeyay marka waxa weeye inuu sannakan eersan oo waliba aanu akhrinay xalay dhaban akhrin la shay akhrinaynaano wax ka bedelano ka khaldana ma naarag saasan ku asaxnay xeerkan sidaasuna ku dhaqan galaya oo waxa weeye doorashadii deegaankii madaxweynuhu ayaa mar la wada saaray oo asaas ku qabsoonaysa insha Allah taala anu waxaan arkaa inuu xeerku munaasib yahay